Muuqaalkan waxaynu kaga hadlaynaa qaybtiisa koowaad Scientific Attitudes habdhaqanka markaasi sayniseed. Scientific attitudes are open-mindedness, skeptical, objectivity, cooperative, respect for evidence, and perseverance. Habdhaqanka sayniska waxaa ka mid ah furfurnaan, shakid, hadaf, wada shaqayn, ixtiraamida markaasi caddeymaha la heli karo, iyo hal adayg. Open-mindedness waa maxay? Open-mindedness is tolerance of ideas of others. Waxay tahay markaasi u dulqaadashada fikradaha kaaga imaanaya dadka kale. Skeptical, shakid, is doubts, questions, or reconsiders of conclusions. Waa markaasi ka shakiyada, su'aal keenida, iyo sidoo kale dib u eegista gabagabooyinka la sameeyo marka hawl la qabanayo. Objectivity, hadaf ama ujeedo ama bartilmaameed. Is making decision based on facts. Waa samaynta markaasi ama gaadhida go'aan iyadoo lagu saleynayo xaqiiqooyin. Cooperative, is working with others for common goals and shares ideas. Wada shaqayn ama iskaashi waxa uu yahay la shaqaynta markaasi dadka kale iyadoo lagala shaqaynayo hadaf guud lana wadaagayo fikrado. Respect for evidence, requires evidence to formulate explanations and making decisions. Ixtiraamida markaasi fikradaha waxay u baahan tahay markaas caddeymo si loo asteeyo sharaxaado loona gaadho markaasi go'aamo. Perseverance, hal adayg, is a consistency to achieve desired goal. Waa ku adkaysashada markaasi la sameeyay si loo gaadho markaasi hadaf loo baahnaa. Science skills process are observation, hypothesis, experimentation, or testing hypothesis, interpreting data, confirmation, draw conclusion, and communication. Hanaanka xirfadaha sayniseed waxay kala yihiin markaas kuwan soo socda. Observation, indha-indhayn, hypothesis, afeef, experimentation, tijaabo, testing hypothesis, tijaabinta markaasi afeefta, interpreting data, turjumida xogta, confirmation, xaqiijinta, drawing conclusion, gaadhida markaasi gabagabada, communication, isgaadhsiinta. Qaybta labaad ee muuqaalka waxaynu kaga hadlaynaa cashirka shanaad ee cutubka midkaasoo ah The Mission of Physics and Career Awareness. Hadafka markaasi fiisigiska iyo sidoo kale ka warhaynta xirfadaha. Why do we study physics? Maxaynu u baranaa fiisigiska? Answer: We study physics to understand the natural world, for technological advancement, solving real-world problems, scientific method, innovation and research, career opportunity, education, and scientific literacy. Jawaab: waxaan fiisigiska u baranaa si aan u fahanno markaasi adduunkan dabiiciga ah, iyadoo markaasi loogu talagalay horumarinta tiknoolajiyadaha, xallinta markaasi dhibaatooyinka dhabta ah ee ka jira adduunka, habdhiska markaasi sayniska, wax hindisida iyo cilmi baadhista, fursadaha markaasi xirfadeed, waxbarashada, iyo sidoo kale qoraallada guud ee sayniska. To understand the electric we use, the mechanisms how cars moves, the energy we need to cook food, we need to study physics. Si aan u fahanno markaasi korontada aynu isticmaalno, habka ay u dhaqaaqaan markaasi gawaadhidu, tamarta aynu isticmaalno ama tamarta aynu u baahannahay si aan cunto u karsano, waxaan u baahanahay inaan fahanno fiisigiska. Example: the people and animals walk, the children run around playground, the cars move from place to another place due to frictional force. Tusaale:
Dadka iyo xayawaankuba waa ay lugeeyaan. Ciyaalku waxay ku ciyaaraan markaasi garoomada ciyaaraha. Gawaadhidu waxay ka dhaqaaqaan markaasi hal meel waxayna tagaan meel kale. Waxaasoo dhanna waxaa sabab u ah xoogga loo yaqaano xoogga isliska. Nothing moves the surface of the earth if it is frictionless. Ma jiro wax dhaqaaqi kara markaasi oogada sare ee dhulka haddii markaasi ay oogadaas sare dhulku ay tahay mid aan islis lahayn. People study physics to answer some of society issues such as energy demand, security, communication, health, and environmental hazards. Dadku waxay u bartaan fiisigiska si ay uga jawaabaan markaasi qaar ka mid ah dhibaatooyinka bulshada, sida markaasi helidda markaas tamarta, ammaanka, sidoo kale isgaadhsiinta, caafimaadka, iyo sidoo kale waxyeellada kale ee deegaanka. What careers can we do with physics? Maxay yihiin markaasi xirfadaha aynu ku qaban karno fiisigiska? Some fields of physics at higher level are thermodynamics and statistical mechanics, electromagnetism and photonics, relativistic mechanics, quantum mechanics, atomic physics, molecular physics, optics, acoustics, condensed matter physics, nuclear physics, high energy particle physics, cosmology. Qaar ka mid ah markaasi waaxyaha fiisigiska ee heerka sare ah waxa ay kala yihiin awoodda kulka, tirakoobka makaanikada, birlab-danabeedka, muuqaal-ileyseedka, makaanikada isku eegidda walxaha, makaanikada cadadka walxaha, atomka physics, physics moleculeed ama physics halbeeg-cufeed, barashada ileys, barashada codeed, fiisigiska maatarka isku cufan, fiisigiska bu'da, fiisigiska walxaha tamarta heerka sare leh, barashada adduunka. Thermodynamic oo ah awoodda kulka is the state of energy conversion. Waa barashada markaasi isku beddelka tamarta, iyadoo tamarta laga beddelayo hal nooc loona beddelayo nooc kale. Statistical mechanics, makaanikada markaasi tirakoobka, is a branch of physics that uses statistical methods to explain the behavior of large number of particles in a system. Statistical mechanics, makaanikada markaasi tirakoob waxay tahay laan ka mid ah markaasi fiisigiska taasoo loo isticmaalo hanaanka markaasi tirakoobka si loo sharaxo astaamaha markaasi tiro aad u badan oo walxo ah oo ku jira markaasi nidaam. Electromagnetism is a branch of physics that deals with the state of electromagnetic forces and fields. Electromagnetism waxa uu yahay markaas ama birlab-danabeedku waxa uu yahay wax ka mid ah markaasi fiisigiska taasoo lagu barto markaasi xoogagga birlab-danabeedka iyo sidoo kale beddelka birlab-danabeedka. Photonics, muuqaal-ileyseed, is a field of science and technology that focuses on the generation, manipulation, utilization of light or photons. Waxa uu yahay markaasi wax ka mid ah sayniska iyo tiknoolajiyadda taasoo diiradda lagu saaro dhalinta, beddelidda, iyo isticmaalka sidoo kale ilayska ama qurubyada ilayska. Relativistic mechanics, makaanikada markaasi isku eegidda, is a branch of physics that extends classical mechanics to describe the behavior of objects. Relativistic mechanics, makaanikada ama hab-dhaqaaqa isku eegiddu waa laan ka mid ah markaasi fiisigiska midkaasoo markaasi ballaadhisa classical mechanics, makaanikada markaasi qadiimiga ah si ay u qeexdo markaasi astaamaha ay yeeshaan walxuhu. Classical mechanics is a branch of physics developed by Isaac Newton. Makaanikada markaasi qadiimiga ah waa wax ka mid ah markaasi ama waa laan ka mid ah fiisigiska midaasoo uu horumariyay fiisigisyahn Isaac Newton. Quantum mechanics is a fundamental branch of physics that deals with the behavior of matter and energy at the smallest scales of the universe.
makaanikada markaasi cadadka walxuhu waxa ay tahay wax aasaasi ah oo fiisigiska ka mid ah taasi oo markaasi lagu barto astaamaha maatarka iyo tamarta heerka cabirka ugu yar ee markaasi adduunka. Quantum mechanics is referred to quantum physics or quantum theory. Makaanikada markaasi quantum ama cadadka walxaha ayaa waxay tahay mid loo tixraaco quantum physics ama sidoo kale quantum theory ama aragtidii markaasi quantum ama cadadkii walxaha ama quantum physics oo ah markaasi fiisigiska cadadka walxaha. Atomic physics is a branch of physics that focuses on the state of atoms. Fiisigiska atomeed waxa uu yahay markaasi wax ka mid ah ama laan ka mid ah fiisigiska taasoo diiradda lagu saaro barashada atomka oo keliya, midkaas oo ah smallest unit halbeegga ugu yar markaasi in the world adduunka. Molecular physics is a branch of physics that focuses on the state of behavior, structure and properties of molecules. Physics moleculeed ama halbeeg cufeed waxa uu yahay markaasi laan ka mid ah fiisigiska taasi oo diiradda saarta markaasi barashada dabeecadaha, qaab dhismeedka iyo astaamaha molecularada ama halbeeg cufeedyada. Optics barasha ilays is a branch of physics that studies the behavior of light and its interaction with matter. Wax ka mid ah fiisigiska markaasi opticsku waa wax ka mid ah fiisigiska taasi oo lagu barto astaamaha ilayska iyo sidoo kale isdhexgalka ay astaamaha ilaysku la sameeyaan maatarka. Acoustics oo ah markaasi barasho codeed ama jabaqeed is a branch of physics that deals with the state of sound, its generation, transmission and effect. Waa wax ka mid ah markaasi fiisigiska taasi oo lagu barto ama ku takhasusta barashada markaasi codka, dhalintiisa markaasi ama sameynta codka, transmission gudbinta markaasi codka iyo sidoo kale its effect saameynta uu yeelanayo codkaas. Condensing matter physics is a branch of physics that focuses on the state of physical properties and behavior of solid and liquid matter. Maatarka markaasi isku cufan ama fiisigiska maatarka isku cufan waa wax ka mid ah ama waa laan ka mid ah fiisigiska midaasoo diiradda lagu saaro barashada astaamaha dhuleed iyo sidoo kale dabeecadaha ay leeyihiin adkayaasha iyo sidoo kale dareeraha maatarka. Nuclear physics is a branch of physics that focuses on the state of atomic nucleus. Physics bu'eed waxa uu yahay markaasi wax ka mid ah fiisigiska midaas oo markaasi diiradda lagu saaro barashada bu'da atomka. High energy particle physics is a branch of physics that focuses on the state of fundamental particles. Fiisigiska walaxda ama qurubka heerka sare tamarta leh waxa uu yahay wax ka mid ah fiisigiska midaasoo diiradda lagu saaro barashada markaasi qurubyada aasaasiga ah. Cosmology is a branch of astronomy and physics that focuses on the state of origin, evolution, structure and eventual fate of the universe. Cosmology ama barashada adduunku waxay tahay markaasi laan ka mid ah cilmiga xidigiska ama falaga iyo sidoo kale fiisigiska diiraddana lagu saaro markaasi asalka, tadawarka, qaab dhismeedka iyo isbeddelka tartiib tartiibta ah ee markaasi adduunka. Some career opportunities for young students may go beyond creedally far: agrophysics, biophysics, computational physics, monophysics, environmental physics, geophysics, medical physics, physical oceanography, quantum computing, and social physics. Qaar ka mid ah markaasi fursadaha xirfadeed ee ardayda fasalka 12aad ah ayaa waxay kala yihiin kuwan: agrophysics, physics markaasi beere, biophysics, physics biolojiyeed, computational physics, physics kombiyuutareed, econophysics, physics dhaqaale, environmental physics,
physics degaan, geophysics physics barasho dhuleed, medical physics physics caafimadeed, physical oceanography physics barasho badeed, quantum computing iyo sidoo kale xisaabinta cadadka walxaha and social physics iyo sidoo kale physics bulsheed. Waa maxay haddaba agrophysics? Is a branch of physics waa laan kamida markaasi physics-ka combine iskuna darta markaasi physics and agriculture. Physics-ka iyo sidoo kale cilmiga kale loo yaqaano agriculture oo ah cilmiga beeraha. Biophysics is a branch of physics combining physics and biology. Physics biology waxuu yahay markaasi laan kamida physics-ka oo isku darta physics-ka iyo sidoo kale biology-ga. Computational physics waxuu yahay the application of computers and numerical methods to physics. Waa isticmaalka markaasi lagu isticmaalo kombiyuutarada iyo sidoo kale hababka tirooyinka physics-ka. Econophysics studies about the physical process and their relations in economy. Physics dhaqaale waa barashada markaasi xanaanada markaasi ama qaababka fiisigiseed iyo sidoo kale xiriiradooda ay la xiriirayaan dhaqaalaha. Environmental physics is a branch of physics studies about measurement and analysis of interaction between organisms and their environment. Physics deegaaneed waa wax kamida markaasi physics-ka oo lagu barto cabirida iyo falanqeynta markaasi isdhexgalka u dhexeeya nooleyaasha iyo sidoo kale deegaankooda. Geophysics physics juqraafiyeed ama barasho dhuleed is the science of physical relations on our planet. Waa sayniska markaasi xidhiidhada fiisigiseed ee meeraheena. Medical physics physics markaasi caafimaad ama daaweed is application of physics to medicine in prevention, diagnosis and treatment. Waa isticmaalka markaasi physics-ku ay isticmaalaan daawooyinka, ka hortagga, baadhida iyo sidoo kale daaweynta. Physical oceanography is the study of physical conductions and physical process within motion. Physics markaasi barasho badeed waa barashada markaasi gudbinta dhuleed iyo sidoo kale xanaanada kale fiisigiseed ee socodka la jira. Quantum computing is the state of quantum mechanical manipulation computation system. Quantum computing xisaabinta markaasi cadadka walxuhu is the state of quantum mechanical computation system. Waa markaasi barashada cadadka walxaha iyo xisaabinta makaanikada ee nidaamyada. Quantum computing is the state of quantum mechanical computation systems. Quantum computing xisaabinta markaasi cadadka walxuhu waxay tahay markaasi barashada nidaamyada markaasi loo xisaabiyo cadadka walxaha ee makaanikeed ama farsamo.